khadar la talin baatiin ها sidee dadku idinku kalsoonaan karaan inuu qofkii bini aadamka isaga oo dhibanaa intuu idin imaado ama naftiisii ka shakisan inaad tala siisaan sidoo idinku aamini karaa bal taa dadka u sharaxo maxmed waa su'aal aad iyo aad u muhiim waana su'aal mar walba taagan haddii wax la yiraahdo confidentiality jira ereygaas waa ereyga ugu muhiimsan haddii aanu qofkani kalsooni ka helin qofkan waxa ugu weyn uu ka warwaraya waa inay dadku ogaadaan dhibtaas haysata marka confidentiality waa qodiga ugu horeeyaan ilaalino qof aan kalsooni ka helina waxa weeyaan dee waxba ka marka kalsoonigi sidaad u ilaalinaysaa meeshii maraysaa waxaad u ilaalinaysaa confidentiality sorta meeshaad ku eegayso waa privacy oo meel gaar uu kugu soo galay soo dhaweyntii baa kamid ah waxa soo dhanba waxa ugu weyn inaad qofkan u sheegto sirtiisa inaad cidna la wadaagin cid uu isagu ogol yahay mooyaan laakiin de aaminaad la'aan baa jirta sumoogi dadkeena way jirtaa dadku isma aaminaan waarun dhakhtarkii ma aaminaysid waarun siyaasigii ma aaminaysid wariyihii ma aaminaysid yani cid aad aaminaysaa way adag tahay marka inta lagu soo hor fadhiistay inaad tidhaahdo waan kugu qarinayaa sirtaada macquuliyaadka qofka bini aadamka say ku hirgelaysaa waan ku wada maxay afka waad uga sheegaysaa waxaad u sheegaysaa in magaciisan halkan shaqaalaha halkan ka shaqeeya mooyaane inaana cid kale arkayn oo kabarkaad buuggii ku qufuleysa numberka la siinayaa waa unique number ART unique number waa mid isaga u gaara oo ina cidna la wadaagayn marka waxyaabaha aad u sheegaysa iyo sidaad u dhageysanayso iyo sidaad ugu soo jeedo imka haddaan kolba dhinac u jeesto markaan qofkii daryeelayo markaan dhibtiisan haysata aan dareensiyo inaan ka damqanayo waxaan aan u sheegaya aan u sheego u yaaminaya la shaka aad baa mahadsantahay